fanaanada caanka ah ee Hodan Cabdiraxmaan oo afar nin isla qabto iyo dhacdo la yaab leh balse markii hore Hodan Cabdiraxmaan oo afar nin isla qabto iyo dhacdo la yaab leh balse marka hore inaan xogtaan bulshada la wadaagno micnaheedu maahan in aan xumaan faafinayno laakiin dhacday oo aan doonayno in ay bulshada wax uun ka ogaadaan ayaan soo gudbinaynaa oo kaliya isku day inaad dhamaysato daawashada barnaamijkan si aan lagaaga sheekeen balse marka hore subscribe saaro Alpha Media Group si aad ula socoto xogaha aan baahino Hodan Cabdiraxmaan oo afar nin isla guursatay cadeymo buuxa ayaan in la wadaagi doonaa siday ku dhacday in afar nin isla guursato Hodan Cabdiraxmaan maxaase ku dhaliyay maxaase ku dhiirigeliyay maxaa sabab u ah in ay arrinkaas ku dhiirato nolosha Hodan hadda waa sidee fanka ma iska dhaaftay hadda intee ayay ku dambaysaa yey la nooshahay afartii nin oo ay isla guursatay maxaa ka jira maxaase sababay in afar nin wada guursatay magacyada nimankaas iyo qabiiladooda ayaan barnaamijka ku lafaguri doonaa sanadkii 2016 waxay ka soo tagtay dalka Mareykanka oo ay ku wada noolaayeen ninkeeda oo lagu magacaabo Maxamed Alta oo ah fanaan caan ah waxay soo gaartay ama timid magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaas oo ay ku guursatay Iidlayare iyadoo oo aan la furin sida aan wada ogsoonahay Iidlayare Hodan Cabdiraxmaan oo la qaba ayuu hees jacayl ah oo calaacal ah u duubay waa tan heestii uu u duubay Iidlayare Hodan Cabdiraxmaan oo la qabo heestan kadib Muqdisho ayay u soo wada duulaan oo waxay show ku qabteen garoonka kubadda cagta ee Konis balse waxaa la socday fanaanka lagu magacaabo Axmed Rasta kaas oo ay meesha isku barteen gabar la dhalatay ninkii koobaad ee Hodan isla markaasina booqasho ugu timid hotelkii ay deganaayeen ee City Plaza Alta walaashiis waa warjiramoog oo maba ogeen in naagtan ay dumaashinimada ugu timid ay laba fanaan isla qabto walaalkeed iyo Iidlayare Axmed Rasta ayaa u sheegay gabadhii Alta la dhalatay in Iidlayare guursaday Hodan Cabdiraxmaan isla markaasina ay walaalkeed iyo Iidlayare ka dhaxayso waa kan codkii ay Maxamed Alta u duubtay gabadhii la dhalatay oo ay ugu sheegayso in Hodan uusan kaligiis qabin معانا ومرخران كانت دردار معني ناك فنان هدي أدكورستو أولاد باري مكيليسي أولاد حلال مدليسي فنان مدوى الدنبي وإلهي وحرالك إهم حتى هذه الكدام بانكودا هذا نواد وجد شرف دار أيكو كنت أديقونن عام مجالبك مادة الوجد حما أياه لك عن نقدا إيدلو كان هرنا وبتوقات إيدلو أنا بنفديو يا إنتي صوى عليه سدر ولا إيدلو مركز سودة قاكي سنيرو بزوجتك كان هرنا وكان ورناكو معانتاس والله معنا وانكو بريا اسكفو أديقو كورس بجبر اسكما سكينا وكو دانتتاس والله howshu waji kale ayay yeelatay oo sii fogaatay iyada oo la yaabanaay in ay laba nin isla guursato ayay haddana ku saddexaysatay Mursal Muuse taas oo ka dhigan hat-trick ama saddexley goolkii u dambeeyay double ayay ku dhalisay oo Mursal waxay isla markiiba ka furtay Qadra Salima laakiin taajirada macluusha la isha daran ayaa ka falcelisay oo Hodan iyo Mursalba hees ku soo karbaashtay howshu waxay soo xangagaaxataba waxay baroosin ka dhigatay Hodan oo Mareykanka ku laabatay ninkii afraadna guursatay iyadoo oo ay san furin saddexdii nin ee isaga ka horeysay qaybtan waa qaybtii koobaad ee la soco qaybta labaad ee barnaamijka si uusan ku dhaafin Alpha Media Group subscribe saaro calaamadda gambaleelkana ha iska hilmaamin mahadsanidin